assalaamu calaykum maanta mowduuceena waxa uu ku saabsan yahay isla markaana ku falanqayn doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee kaadida geela. haddaba wixii cilmi baadhis iyo tijaabo lagu arkaa ayaan halkan kuugu soo gudbin doonaa. marka hore ku daaweynta kaadida geela waxa ay salka ku haysaa xadiiska rasuulkeena suuban Muxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee ee uu ku daaweeyay qoladii soo booqatay magaalada rasuulka ee Madiina kadibna ay ku xanuunsadeen. markaas ayuu rasuulku kula dardaarmay inay cabbaan caanaha iyo kaadida geela. markay cabbeen oo ay ka bogsadeen xanuunkii ayay waxay dhaceen geelii rasuulka waxayna dileen wiilkii geela jiray. haddaba riwaayadaha ku soo arooray xadiiskan marka ay sifeynayeen xanuunka dadkan hayay waxa ay sheegeen in midabkooda uu jaalle ahaa, calooshooduna ay weyneyd, miisaankooduna aad u liitay. astaamahan oo tilmaan u ah beer xanuunka weliba markuu gaaro heerka caafimaad ee loo yaqaano liver cirrhosis oo tilmaamaysa inuu beerku howlgab noqday, qofkuna caloosha biyo ayaa ka gala oo way weynaataa oo waxaa loo yaqaanaa ascites. arrintan oo ilaa hadda markuu beerku heerkan gaadho aan daawo loo hayn. haddaba su'aashu waxay tahay kaadida geela maxay kaga duwan tahay kaadida xoolaha kale? ninka geela dhaqdaa garanaya geelu badanaa waxa uu cunaa dhirta lagu sheego faa'iidooyin caafimaad. sidaa darteed geela caafimaadka lagu sheego caanihiisa iyo kaadidiisa waa geela baadiyaha daaqa ee maaha geela magaalooyinka lagu quudiyo. sidaa darteedna xoolaha daawada lagu sheego oo idilna waa xoolaha aan bini'aadamku daaqooda soo faragashan. haddaba caadiyan kaadidu waa qashinsaarka jidhka, badanaana waxaa ku jirta sun badan oo qofku hadduu cabba halis gelin karta. laakiin kaadida geelu way ka duwan tahay. maxaa yeelay kaadida geela kuma jirto waxyaabaha sunta ah sida ammoniya iyo yuuriya oo ah waxyaabo halis ku ah bini'aadamka jidhkana uu iska saaro. haddaba arrintan waxaa lagu ogaaday 1925kii dalka Chinaha waxaana lagu soo daabacay majalada la yidhaahdo The Journal of Biological Chemistry. waxaana intaa dheer in kaadida geela ay ku jiraan waxyaabo aan laga helin kaadida xoolaha kale, kuwaas oo loo saarinayo ama loo sababaynayo inay sabab u tahay faa'iidooyinka lagu sheego. waxaana jirta cilmi baaris lagu sameeyay dalka Suudaan oo si fiican u faahfaahisay waxyaabaha kaadida geela laga helay iyo waxyaabaha ay jidhka bini'aadamka u tarto. haddaba cilmi baaristaasi waxa ay cusbatay ilaa 13 cilmi baaris oo kale kuwaas oo lagu sameeyay wadamo kala duwan. haddaba waxyaabaha kaadida geela laga helay waxaa ka mid ah waxyaabo la dagaalama kansarka, taasoo daraasado gooni ah lagu sameeyay. haddaba dadka aad ugu takhasusay ku daaweynta kaadida geela waxaa ugu caansan Professor Axmed Cabdalle Axmedani. waa brofesor u dhashay dalka Suudaan oo ku takhasusay cilmiga shaybaarka iyo maadada jeermiska ilmaaragtada ah. wuxuuna kaadida geela ku daaweeyaa cudurka kansarka ee beerka ku dhaca iyadoo uu ka qoray buugaag badan oo ku saabsan qaabka uu wax ugu daaweeyo kana soo jeediyay khibradiisa shirar badan oo caalamiya. haddaba waxyaabaha uu sheegay brofesorkaasi waxaa ka mid ah in kaadida geela iyo caanaha geela oo la iskugu daro bukaanada muddo 4 bilood ilaa 5 bilooda kuwaasoo uu sheegay inay kaga raysteen xanuunkaas. wuxuuna sheegay inuu isticmaalo caanaha geela qaalinta. haddaba wuxuu baaris ku sameeyaa bukaanadiisa daaweyn ka hor iyo kadib. geesta kalena dadka arrintan wax ka baadhay waxaa ka mid ah cilmi baadho u dhashay dalka Sacuudi Carabiya oo lagu magacaabo Professor Ahlaam Al-Cawaadi oo muddo daraasaynaysay sida kaadida geela loogu daaweeyo xanuunada maqaarka ku dhaca, iyadoo ugu dambeyntiina ka samaysay daawo kariim ah oo la marsado laguna daaweeyey cudurrada cambaarta, xasaasiyadda maqaarka, findoobka, gubashada, cudurrada cidiyaha gala iyo weliba basada ee fangaska uu keena iyo kansarka maqaarka. kareemka ay inantaasi samaysana waxaa loo aqoonsaday isla markaana fikradiisa diiwaangelisay hay'adda ilaalisa xuquuqda fikradaha ee loo yaqaano World Intellectual Property Organization. waxayna cilmi baaristeeda iyo weliba xaaladaha ay ku daaweysay ku soo bandhigtay shir lagu qabtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. arrintan oo ay ku mutaysatay bilad dahaba sanadku markuu ahaa 2005. haddaba cilmi baaristaasi waxay asal u noqotay cilmi baarisyo kale oo ku xigay laguna soo saaray shaambooyin iyo kareemo loo adeegsado caafimaadka tinta, kuwaasoo sheegay in timuhu ay dheeraanayaan, midab dhaldhalaalna ay tintu yeelanayso. dad badana ay hadda isticmaalaan. waxyaalaha kale ee la sheegay in lagu daaweeyo kaadida geela waxaa ka mid ah
cudurka macaanka inkastoo aysan jirin cilmi baadhis xaqiijinaysa in lagaga bogsan karo cudurka macaanka oo idil laakiin waxaa la og yahay in caanaha iyo kaadida geela ay labaduba ku jiraan waxyaabo sonkorta hoos u dhiga sida hormoonka loo yaqaano insulin dhinaca kalena waxaaba jira dad badan oo u isticmaala cudurka HIV-ga laakiin iyadana weli lama hayo cilmi baadhis arrintaas xaqiijinaysa inkastooy jiraan dad sheegaya in macaanka ama cudurka aydiska ay kaga bogsadeen cabbista kaadida geela haddaba guntii iyo gabagabadii mawduuceenna waxaa xaqiiqo ah in cudur walba daawadiisa uu alle dunida u soo dejiyey sida rasuulkeenna suuba inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam sidaa darteedna qofkii caafimaadka maanta dunida jira xalkiisa ka waaya yuusan quusan oo naxariista alle lagama quustee alla bari isaga ayaa ku siin kara caafimaad taama